تاريخ الصحابة كتال سيرة علي بن أبي طالب نين بايد هل من مبارز وحل معركة مسلمين تلو حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أيو يري نينكي ugu itaalweyna gaalada ayaa soo dhaco yiri hal min mubarizin ayaa macrakada igu soo dhacaya Ali baa u dhacay radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib ninkii intuu qabtay buu lagday markuu seeftay qaatuu yiri gali markuu isirina Ali ibn Abi Talib oo ninka kor fadhiyay buu qandhuuf wajiga lagaga tufay markaasuu Ali qandhuufa lagu tufay wajiga lagaga tufay gaalkiina dhulku jiifaa Alina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay Ali oo sareeya oo ka kacay Ali saxaabadii waxay ku yiraahdeen ya Ali maxaad uga kacday baa lagu yiri gaalnimana ninkan diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuuf kugu tufee war marka hore Ilaahay dartii baan u dagaalamayay hada cara ay soo gashay buu naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yiri lillahi yad waxaan qaban Ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan Ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici Ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin Ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg Ilaahay dartii baan u sheegi khayrkan dhageysan Ilaahay dartii baan u dhageysan waa inaad noqoto qof diiniya oo diintu ay xakameynayso si su'aasha qabriga kugu dhib yaraato tiraado aniga diintaydu waa islaam markaas nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam baa la horkeeni oo la oran doona maxaad u taqaanay shakhsigan markaas uu muuminka leeyahay waa nabigeeygi Muhammad alayhi salatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la oran doona an sadaqa abdi adoonkaygi run buu sheegay afrishuhu min aljanna firash jannada ka soo qaado u gogla walbisuhu min aljanna dar jannada ka soo qaado u xidha waftahu lahu baban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halka ka daawaday baa la oranaya dulkaad ku celisay meydka dhulkaan ku aasnay minha khalaqnaakum wa fiha nu'iidukum halkaad ku aasay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaab al-abrar la fi illiyin jannaduna waa fawqa 7 samaawaat halkaas qofka muuminku jannadiisa ka daawanaya sida inakuba aaladan yareemka aan haysanay mobilka jaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeyay jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaarada Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halka jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam ayaa inoo sheego yiri qabriga dhexdeeda daaqad looga furaya halka buu ka arkaya jannadiisa iyo naciimtiisa iyo xurul cayntiisa markaas la oran doona iska seex qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanaya laana jannada dhexdeeda hurda ma jirto an-nawmu akhul maut wa ahlul jannati la yanamun ba nabigu alayhi salatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahlul jannuhu jannada haday galaan ma seexanayaan buu rasuulku yiri adduunyadan maalintiina waa foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahlul jannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waa ku sheegaya la yamassuhum fiha nasab wama hum minha bimukhrajin ba ilaahay yiri ahlul jannuhu jannada hadii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daalo soo gaaraya ma jirto jannada ay galeen kuwa ka baxaya ma marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyada ku qabtaan waa la hordhigaya marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo ma jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكإلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه قشيغي سورة أفوفينا با إلهي إسرافيل با سورة أفوفايا دان دولكي كصوبحي دونان دان حق إلهي بالله سورين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحوليهي وما حيب ليهي إيا هرددي نغسو كعيي وان جفني وان هردني هرددا maxaa naga soo kiciyay buu leeyahay markuu arko khalqigi oo banka qiyaamada sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay rasuulshiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yawm alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu
وهبين نولش قيامهنا ومالين كليا نولش أدويدو وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بايل هيري آية الليل آية النهار نولش أدويدا أن كنا الله ومالين يهبين مالين تينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد سيحانيسا قبرك هدين لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عصر بايل هيري نعم الدويدن انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالين يهبين قبرك هدين لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوشي يقولي قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بربرها جنة كميدا اللوغة ديغيا قال كينا واحد اللوغة ديغيا قد كنار كميدا اللوغة ديغيا لأنه هردا وتضباطا كيساني الدويدة وصود علي أيا للي هلكا هكو دالو هكو نستو من آدم عليه السلام لقبل أبو إلى جوجدنا وحي أدوية بني آدم صومري عالم البرزخ بي كجران إن وي هردا وي نسانيسا ووحا قبري دباتك وكالكو هايسا ورؤمها يعني وي هردان مالك قيامه صورة الله عفوفه بقبرك كصبح دونان ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها داتك أدون كدو شيء لا إله إلا الله إهل كيك النقضة الله ينقدقو قبرك مركي قلان كوكليوب مايام مالك قيامها مركي صوبحان حسردي الندامئي مرق لي أركي مايان وحاد موداب النبي يقول إنان أجيدون أركايو أيكو قبوره كصوبحي أعيد إنت إسكهر قفين إليهين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إلها وحان كم هذنا نحدنتي مرقتي أنك النقاقاذي ربي قي واكيدا فتان كبنا إيه شكورك هاويان إيه أفعاشا وناكساني أدون كل ما در لك كنقضي ويان لأنه يصوبح يعني يوم القيامة مالين تسرجوغا ويوم قرآنك يوم بوشيغا هبين مشيغن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الصاخة هبين من مغليسد هبين كدون دون واكاسه قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنوا صندون ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتن كنوا صنوا والجوغي توبان كنوا صنوا حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنوا صنوا يا سيد الله تاقنان دونا توبان كنوا صنوا حسابتا كل مان دون لنا عربي ورير بادية أيا سرك عير يا رسول الله ما لقى قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقى سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقى نكي عربي انتو سيجي استيبو يري نجونا ورب الكعبة كعبة ربك أيا كل دارتي وان بدبادني بودي وان نبت قال لي بودي مرقى النبي يقول صونغو سيادو كل نبت قشي بوكيري بلي شك وعد وكريم إلهي وكريم هدو دونوسك هيا عفين بودي معيد باسكا قبصاني سيبودي